xoga muhiim ah xaqiiqooyin aadan ka ogeyn xoga ka daahson macluumaad dheeri ah ayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa oo ku saabsan dalka Belgiumka. dalka Belgiumka waxa loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Dadka ee Belgiumka waxa uu ku yaalaa galbeedka qaaradaynta Yurub. dalkan Belgium la yiraahdo waxa uu xuduud dhanka dhulka uu la leeyahay wadamada kale ah Faransiiska, Jarmalka, Holland iyo Luxembourg. waxaana badka dhulka dalka Belgium lagu qiyaasaa 30,528 kiiloomitir oo isku wareeg ah. caasimada wadanka waxa la yiraahdaa Brussels, waana magaalada ugu weyn dalka Belgiumka. tirada dadka Belgiumka waxa lagu qiyaasaa 11 milyan oo ruux. calanka wadanka waxa uu ka kooban yahay 3 midab oo kala ah: madow, jaale iyo casaan. lacagta dalka laga isticmaalo waa lacagta qaaradda Yurub laga isticmaalo ee la yiraahdo euro. gaadiidkan waxa isku dhaafaan marka Belgium kala joogo dhanka midig, waxaana dalka looga hadlaa luuqado kala duwan. saddex ayaan ugu caansan waana Faransiiska, Germany iyo sidoo kale Holland. bishii Oktoobar 4 sanadkii 1830 ayaa lagu dhawaaqay in dalkani uu ka xoroobay dalka Holland oo uu ka tirsanaa. hase ahaatee waxa dal madax banaan loo aqoonsaday 18 bishii Abriil sanadkii 1839. dalka Belgium waxa uu ka mid yahay dalalka boqortooyinka leh. sidoo kale dalka Belgium waxa uu leeyahay baarlamaan federaal ah iyo golo xukuumadeed oo ra'iisul wasaaraha hoos tagta. caasimada dalka Belgium ee Brussels la yiraahdo sidoo kale waa xarunta ururka midowga Yurub iyo ururka gaashaanbuurta NATO. dalkani waxa uu ka mid yahay shantii wadan ee ururka midowga Yurub aasaasay taariikhdu markay ahayd 1 November sanadkii 1993. dhanka dhaqaalaha hadii aynu eegno, Belgiumku waxa uu ka mid yahay 15 wadan ee dunidan ugu dhaqaalaha badan, waxaana dawladda dakhliga ugu badan ay ka heshaa shidaalka, dheemanka iyo dhoofinta agabyo ay farsameeyaan warshadaha dalkaasi oo ay dawooyinka ugu horeeyaan. xagga waxbarashada hadii aynu eegno, dawladda waxay qasab ay ka dhigtay in ilmaha marka ay gaaraan 6 sano ay waxbarasho helaan, waxaana dalka Belgium uu ka mid yahay wadamada 18 sano lagu qaangaaro. dawladda wadanka ka jirta waa Masiixi, muslimiintuna aad ay ugu yar yihiin wadankaasi. muslimiinta ugu badan waa dad si tahriib ah ku galay wadankaasi, waxaana dadka ay dawladda qaxootinimo ay u qaabishay ay gaarayaan 1.3 milyan oo qof oo tirada guud ahaan ee dadka Belgium ku dhaqan ka dhigaysa 25% dad tahriibyaal ah amba dad tahriib ku soo galay. dadka Belgiumka ku dhaqani waxay dadka ay ku marti sooraan qudaar la dubay iyo bur inta la dubay haddana la kuuskuusay oo marka wadankaasi la joogo loo yaqaano moules frites. sidoo kale shukulaatada ayaa aad looga cunaa dalka Belgium. dalka Belgiumka waxa aad looga xiiseeyaa sportska qaybihiisa kala duwan sida wadista baaskiilada. The departure of team BMC. One of the riders on their team, Peter Velic, the Slovakian national champion. He's been dabaasha. Al Shamar in the yellow cap. They're coming up to halfway. Conor Jojo's there with Veldhouse and also Al Shamar. Lane 6 going well, Stefan. Tenniska. Oh, and he's really starting to feel it now. waxaana aad looga xiiseeyaa dalka Belgiumka kubadda cagta. xulka qaranka dalka Belgiumka dhowr jeer ayay ka qayb galeen ciyaaraha koobka adduunka ee FIFA ay maalgeliso, weligood sama qaadin koob adduun. sanadkii 2014 ciyaartooyda qaranka dalka Belgiumka waxay gaareen heerka 8 dhamaadka ciyaarihii koobka adduunka ee lagu qabanayay dalka Brazil. dalka Belgium waxa uu dhashay ciyaaryahanno badan oo caan ka ah caalamka daafihiisa, waxaana kamid ah xidigahaasi Romelu Lukaku, Eden Hazard. Goodness me, that was deft. Hazard is onside here and beyond the keeper and had to score. Vincent Kompany. McGregor came, he didn't get there. Berra did, in fact. The communication breakdown, it's still with Witsel. Scotland trying to push out. Hazard with the little pass into Kompany. Lovely feet from Kompany. Oh, what a goal! That is stunning. Just a reminder, he's a centre-back. iyo Marwan Falani. Found room for the cross for Lady! waynaga inta macluumaadkii koobnaa ee aan uga hadlaynay dalka Belgiumka.